aad ma santa waqtiga qaaliga inaad wax naga siiso anagana press ku wax ka siiso maanta waxa soo booqatay xarunta akademiga booliska ciidamada nabad sugidda Soomaaliyeed lagu tababaray arintaasi maxay ku tahay runtii wax walba oo ku aragnay iyo wax walba oo aan ku maqalay booliska akademiyada booliska Djibouti aad oo weyn bay noo farxad gelisay kalsooni badan bayna gelisay gaar ahaan marka aanu la kulanay 200 oo ciidan oo booliska Soomaaliyeed ka tirsan oo tababar halkaas ugu dhamaanayo 16 runtii qalabkooda ayagoo watana degdeg ugu soo laaban doona Soomaaliya arintaasi farxad ballaaran bayna gelisay raalli baana ka nahay cid allaale cidii kaalmaysay cid allaale cidii tababartay gaar ahaan dawladda Djibouti oo hawshan ayada isku dubaridkeeda qayb weyn ka qaadatay Talyaaniga oo bixiyay fanka iyo Amisom oo ka qayb qaadatay tababarka iyo dhammaan cidii kale oo ku gargaartay aad baan uga mahadnaqaynaa raalli baana ka nahay aad baan u arkaynaa inay wax badan oo Soomaaliya u baahnayd ay ku dari doonaan ciidamadan sida gaarka ugu tababaran ka hortagga dhibaatooyinka mudaharaadyada wata si gaar ah ugu tababaran waxaan kaloo rabaa inaan intaas ku sii daro waxaan rajaynaynaa ayagoo qalabkooda wata ayaguna dhawaan inay ku soo wada laabtaan Soomaaliya qalabkii shalayna la siiyay oo ahaa asaguna loogu isticmaalayo booliska ciidanka Soomaaliyeed loo isticmaali doono oo asna lahaa ka hortag qalab boolisku u isticmaalayo gaadiid ahaan iyo ka hortagga mudaharaadyada rabshadaha wata asaguna wuxuu noqon doonaa wax aad noo anfici doona waxaan rajaynayaa muddo gaaban gudahood ciidamadan qalabkooda ay la iman doonaan iyo qalabkii shalay nala guddoonsiiyay in lagu arki doono dhammaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya maxaa yeelay Soomaaliya hadda waa ka baxday waqtigii ay ahayd dawladda Muqdisho Soomaaliya waa dawladda Soomaaliya wixii halkan aan ka qaadno wixii halkan nolo kugu tababaro dhammaan waa wax u laaban doona Soomaaliya oo wada jirta u laaban doona akhbaartan si gaar ah ayaan ugu hambalyeeynaa dadka Soomaaliyeed oo colaadaha iyo dhibaatadu ay daashadeen waa rajo cusub oo na tusaysa in gacan ballaaran aynu ka helay walaalaha iyo Djibouti ugu yaraan xagga xasilinta amniga gudaha gaar ahaan booliska waxay ku biiri doonaan ciidamadani ciidamo si gaar ah loogu tababaray xamar oo la dagaalami doona dhibaatooyinka xamar ammaanka xamar inuu sii wanaagsanaadana keeni doonta ciidamadaas waxaa lahaan doona anna ku dadaalaynaa inaanu ka gacan siino dhammaan qaybaha Soomaaliya hadda afkayagu waa ka duwan yahay waqti yar dhaweyto sidii aanu u hadli jiray maxaa oo waxaanu leenahay mar walba Soomaaliya oo dhan taasi waa waqtiga cusub oo galay waanu ku faraxsanahay sida maaragtay qorshaha iyagu u cad yahay sida dhammaan waxa aynu helayno iyo sugidda ammaanka tusaale ay noogu tahay sidii xamar laga yeelay xamar oo kale waad garanaysaa muddo gaaban gudaheed sida ay ahayd maanta sida ay tahay qorshaha aynu ka damacsanahay muddo gaaban gudaheed markay noqoto ciidamadani waxay noqon doonaan ciidamo dheeraad ah oo ku biira qorshayaashii hore aanu uga dan lahayn xamar iyo dhammaan qaybaha kala duwan ee Soomaaliya waa akhbaar fiican mar labaad baan si gaar ah waxaan uga mahadnaqayaa dawladda walaalaha nahay oo Djibouti oo sidii aan u imid booqashadayda iska xilsi gaar ah isaga xil saartay ha noqoto soo dhaweyntii ha noqoto kulankii madaxweynaha qalabkiina la siiyay iyo maantayto oo nala ku casuumay sagoontinta ciidanka booliska Soomaaliyeed oo qalabkiisa iyo tababarkiisu asagoo u dhan yahay dhawaan Soomaaliya loo soo diri doono waanu u mahadnaqaynaa farxad gooni ana wayna gelisay waana wixii aan ka filaynay walaalaha iyo Djibouti mahadsanid مدن رئيس الوزراء إن شلته وزارة قاشان دقادي مرتي وهاد مانتن وزارة دارمها جودها هدي أد بلسي أو درسته جودهن أمان كدلك إياه مجالنا مقدشو كورمان سيده بوليس كصوماليا سيدي أيه هرجل دون المدام هل كان عيدا توبر وجود ما سيجار أو توبرن هو كلاتنا لا دعي كرتيني دلالك قبل هذا أي جيران wax badan oo aan muddo gaaban filahay hadda wax badan ayaa iska bedelay way ka dhawaan doontaa
sidii aynu qiyaasaynay dhibaatada Soomaaliya waqtiga lagu gabagabayn doono waxaan rajaynayaa muddo aad u gaaban Soomaaliya dhamaantood inay lahaan doon in ammaanku sugmi doono in rajada iyo nolosha iyo ganacsiga iyo dhaqdhaqaaqo si buuxda ugu hirgeli doono maxaa yeelay waxaan tixgelin gaar ah siinayaa ma aha ciidamada aan leenahay kaliya is afgaradka ka dhaxeeya iyo soo dhaweynta dawladda iyo dadka waxaan kaloo tixgelin gaar ah siinayaa dadka iyaga Soomaaliya oo u samaysan runtii nooc shaqo aqoon ah business aqoon ah kalsooni badan beeri kara shaqadoodana ku filaan kara hadday arkaan kalsooni dawlad ay ku qabaan mar waanu muujinay sida aynu wax u maamulayno in kalsooni badan dawladda lagu qabi karo waa hubaa dadku wuxuu ka qayb qaadan doonaa ammaanka dalka sidaas iskaashigaasi waa sirta aan ku rajaynayno Soomaaliya waqti gaaban ammaankeedu inuu sidii uu ahaan jiray iyo si ka fiican uu noqdo kalsooni badan ayaan arintaas ka qabaa tan iyo intii xukuumadda la soo doortay aad ra'iisul wasaaraha ka tahay run ahaantii waxaad isku hawshiin xagga amniga ma la oran karaa haddaba sidaad amniga ku sheegtay in aad haddeed daafi doontaan oo iskaashigiino oo loo tallaabsan karo heerar in aad dib loo soo dhiso ilaahi dhaqaale ama iskaashigu uu noqdo oo amniga oo kaliya uu ku koobnaan oo uu dhaafo xagga dhaqaalaha iyo ilaahi dhaqaale mahsanid waxa weeye marka hawlu ku taalo hawsha qorsha loo degsadaa qorshahana waxa la kala siiyaa mudnaan marka qorshaha noo degsani wuu ballaaran yahay wuxuu taabanayaa amniga wuxuu taabanayaa cadaaladda wuxuu taabanayaa dhaqaalaha wuxuu taabanayaa arrimaha bulshada wuxuu taabanayaa siyaasadda caalamka oo aanu Soomaaliya leenahay dhammaan wuu taabanayaa hase yeeshee marka ayaga dhexdooda mudnaan loo kala sameeyo baa amnigu wuxuu leeyahay mudnaanta koobaad sidaa la aligeed inaanun hadba ayadoo ku xiran marxaladda la marayo hawlaha iyaga mudnaan u kala siinaa khasab ah mudnaantii aan amniga siinay waa ku guulaysanay wax la taaban karaanu ka aragnay sidoo kale qaybaha kale ayaa mudnaantoodii soo gali doontaa waad aragtay hadda waxaa ka socda shirweyne ballaaran garsoorka waa xamar ka socda macnuhu waxa weeye cadaalad iyo garsoor keen ad nabadu ha ku adkaatee dhaqaalaha waad la socotaan sidoo Soomaaliya uga socdo sida arrimaha bulshada iskoolada ee dawliga ah ama kuwii kale oo la dhagax dhigahaya waad la socotaan guulaha aan siyaasadda caalamka ka soo hooynay waa la socotaan waa la wada socdaa hase yeeshee mudnaanta ammaanka waxaanu u siinaynaa si kuwa kale oo dhani fursad u helaan sidaasi waa aragtidayada waana ku liibaanay ilaahay idankiisa صعدة راسة Merci. يبين واحد سبحان الله
رئيس الوزراء ساعد يوفدي وهجاميني ayaa gabagabadii munaasabadaasi toos ugu gudbay dhinaca Ceelboorka halkaas oo uga sii gudbay magaalada Addis Ababa ee wadanka Itoobiya oo booqasho hawleed ku tagi doono waxaana sidoo kale uu soo mari doonaa wadamada Uganda iyo Burundi iyo Kenya inta ayaynu ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkii gaarka ah ee ku saabsanaa booqashadii ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ee wadankan Jamhuuriyadda Djibouti tani intaan ku kulmayna barnaamijkan la mid ah waa Mikael Cabdirashiid Barre oo idinkaga tagay sidaa iyo nabadgelyo